wararka ka imanaya degmada Dinsoor ee gobolka Baay ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dagaalkan ayaa yimid kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar qorshaysan ku qaadeen saldhig ciidanka Itoobiya ay ku lahaayeen banaanka degmada Dinsoor ee gobolka Baay. dagaalkan oo la isku adeegsado hub culus kaas oo laga maqlay deegaanada u dhow magaalada Dinsoor ee gobolka Baay, waxaana la soo warinayaa in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee soo kala gaaray labada dhinac. saraakiisha ciidanka Itoobiya ayaa laga soo xigtay in ay ka difaaceen weerar kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen saldhig ciidanka Itoobiya ay ku lahaayeen banaanka degmada Dinsoor ee gobolka Baay. sidoo kale waxa ay sheegeen in halkaas ay ka wadaan howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. dhankooda ururka Al-Shabaab oo ka hadlay weerarkaani ayaa sheegay in halkaas ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Itoobiya isla markaana ay ku furteen gaadiid fara badan oo yaalay saldhigaasi. ma jira ilaa ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada Dinsoor ee gobolka Baay. Al-Shabaab ayaa inta badan waxa ay weeraro ku qaadaan saldhigyada ciidanka Itoobiya iyo kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin halkaasi.